معصرا كئيبا يفتر الهمة. خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة، فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة؟ فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قضية المرأة أما قبضة عالم هو موضوع إن بدن لوضوضه إن بدن لغهد له. كيفية اللو علاجين أيه أما اللو دوين ينوى لغوك لقديسية قبضه قارهان marka la yiraahdo mawduuca ku sheegan tahriir al-mar'a aw ta'liim al-mar'a iyo wixii ku saabsan oo aad mooday inay tahay fikrad ka soo gudubtay dhanka gaalada. way dadka muslimiinta ah xuquuqda raguna ma dajiyo dumarkuna ma dajiyo, maadaama aanna xaq haynin gabadhana xaq haynin. ilaahi subxaanahu wa ta'aala gacantiisa ay ku jirto sharciga iyo qaanuunka isagu uu hayo. kama jirto caalamul islaami wax la yiraahdo xuquuq dumar baan u doodaya ama xuquuq caynkan aan u doodaya. asalka wada weyn bay dadka muslimiintu u doodaan oo ilaahay xaqiisi. nabigu wuxuu ku lahaa salawaatullaahi wa salaamu alayhi mucaad ya mucaad atadri ma xaqu llahi cala alcibaad ayuu ka bilaabay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi. qofka xaqaasi gartaana xuquuqda ka hooseyso dhan uu garanaya. marka qofka garta xaqa adoomaha uu alla ku leeyahay subxaanahu wa ta'aala oo ah inay kaliya caabudaan kaliya ka dambeeyaan isagana ka amar qaataan. idan markaynu shariico islaamiya tabaqno oo ilaahay kitaabkiisa qaadano kama jiro wax la yiraahdo xuquuq rag, xaq dumar, xaq caruureed, xaq caynkan. qof waliba xaq uu leeyahay ilaahay baa u qoondeeyo siiyay. cidina cid xaqeeda ma qaadi karta ama se ma duudsi karto. haddii marka la rabo in la saxo mesela dulmi wuu dhici karaa. haddii cid uu dulmi ku dhaco cid uu doonaba ha noqday ama rag ha la dulmiyo ama dumar ha la dulmiyo ama caruur ha la dulmiyo ama cid kale ha la dulmiyo, saxeedu maaha in la yiraahdo xaqii dumarka ha la raadciyo. waa ha loo noqdo in ilaahay kitaabkiisa weeyaan. marka loo noqdo ilaahay kitaabkiisa wuu saxmaysaa oo muraba kama imanayo. waxaad markaa masalada tan moodaa inay tahay rag kale taariikhdood oo inaga dusha laynaga saarayo. taariikhda ku saabsiisan dumarka iyo sida loola dhaqmayo iyo waa taariikh gaaleed iyo xuquuqdoodan iyo waxa waayo masiixiyiinta ama waqtiga kristanka ahaayeen ha ahaato ama before Christ ha ahaado markay Romanska ahaayeen iyo Greek iyo Hunuudi hore iyo adyaantii caalamka jirtay dhammaanteed dulma wada jiray. dulmigaasi wada jiray dhammaantiina yani dulmigu ilaa xad buu gaarsiisanaa. مثلا mu'tamaraadkooda qaarkood lagu baxsay jiray مثلا qarnigii shanaad mu'tamar Macon lagu qabto kale gabadhu ma jir khaliya mise horta ruuxba waa ku jirta. waa mu'tamar dhan oo la isugu yimeen la ogaado gabadhu inay ruux leedahay iyo inaan ruux lahayn. akhiiran waxay gabagabeeyeen oo yiraahdeen ruux baa ku jirta laakiin mid cadaab ka baxsanaysa ma aha bay dhahay tii ciise hooyadii mooyaane. yani inta kale dumarka oo dhan ruuxda ku jirta waa ahlu naar, ruux ahlu naar ayaa ku jirtay ku soo gabagabeeyeen. aaraada rijaalkoodaasi oo Francisco مثلا mu'tamar buu baxtay caynkaasi u qabtay la leeyahay gabadhu ma insaan ba ma bini aadan ba mise insaan maaha. akhiiran waxay gabagabeeyeen waa insaan laakiin inay ninkuunu shaqaysaa loogu talagalay. waxaad garan kartaa markaasi afkaartaasi say u soo socotay ama loo soo wadwaday ilaa xad mu'tamaraadkooda qaarkood waa qabteen ruuxda ku jirta ama ruux bini aadan ba mise waa ruux xayawaan hadday ruuxiba ku jirto. waa mu'tamaraad dhan oo culimo isugu timi oo laga doodayo falsafa joogto warkana joogo. waxaynu odhan karnaa reer galbeed taariikh madow oo noocaas ay lahaayeen ilaa xad. qaanuunkan ingiriisiku 1805 markay taariikhdu maraysay waqtiga xataa qaanuunka ingiriisigu wuxuu ogolaa
inuu ninku gabadhiisaba iibin karo. qaanuunka Great Britain wuxuu ogolaa inuu ninku gabadhiisaba iibin karo. weliba markaasuu qaanuunku xadiday qiimaha lagu iibinayo 6 beesood kama badan karta buu yidhi. 6 beesood bay ahayd waxa lagu iibin jiray oo ninku gabadhiisa ku gaday 1931kii 1931 baa nin ka mid nin Ingiriisi islaantiisii iibiyay xaaskiisii iibiyay dabeetana dood maxkamadeed baa ka dhacday akhiiran qaadigii wuxuu soo saaray qaanuunka 1805 in la joojiyay arrintan oo xaq u lahayd. thawra Faransiya markay dhacday waxa bilaabmay aragtiyahan tirada badan leh xataa thawra Faransiya la yiraahdo xuquuq bay raadcaynaysiin warkaasi ay sheegaan waxa mansuus ku ahaa mesela ilmaha yar iyo qofka waalan iyo gabadhu inay qaasiriin yihiin oo aanay lahayn tasarrufaad gabigood baynaan loo ogolayn. ilaa 1938 buu warkaasi soo socday. waa markay soo saarayeen 1881kii ayuu The Married Women's Act Ingiriisku soo saarayeen rajaynaya. waxaan u tilmaamayaa inaan sheego uun mujarrad taariikh aan teena ahayn in la rabo inta laynoo dhigo in la yidhaahdo dumarkii baa la xoreynaya dabeetana inagana laynoo sameeyo ururo haweena ah oo dhammaantood waxay raadinayaan uu yahay in la xoreeyo haweenka. عموما markaynu soo qabanno xataa falsafadoodii casriyada dambe مثلا Montesquieu maxaa la yiraahdaa Rousseau Voltaire Auguste Comte waxaasi oo dhami waa falsafadii qarnigii 18aad ee reer galbeedku waxay ahaayeen qoladii ka soo horjeeday xorriyadda dumarka iyo waxa la sheegay oo dhan. علماء taariikh say ka waramaan waxay dhahaan thawra sinaaciya markay timi ama industrial revolution ki ayaa bedelay noloshii mujtamaca oo baadiyiinta laga soo baxay magaalooyin la yimi oo warshadiye waxaan shaqaale u baahnaadeen shaqaale jaban baa bilaabmay shaqaalaha jaban waxa bilaabmay dumarkii in wax badan la siin waayo dumar iyo caruurta baa laga shaqaysiin jiray caruurtii qolaa u doodooday dumarkii xaqoodii baa la siin waayay akhiiran dumarkii waxay isku dayeen mudaharaad inay dhigaan kan inay sameeyaan xaqooda inay u doodaan xuquuqdoodii way wadeen maalinba mid bay dhacsanayeen maalin dhaweyd bay ahayd markii loo ogolaaday inay wax dooran karaan bal wadamada reer galbeed ee wali xuquuq bini'aadamka ka shaqeynaa qaar baa 17kii loo ogolaaday gabadh inay food ku ridi kartaba Switzerland iyo 1971kii baa loo ogolaaday ba inay u footeyn karto ma ahayn la dooran karo inay wax dooran karto. Francisca 1945kii dagaalkii labaad markuu ka baxay buu ogolaaday raggiisii intii badnayd madhe Ingiriisku 1928kii buu ogolaaday xaqa inay wax dooro waayo dumarku waxay dhahaan xaqeena dhacsan kari mayno ilaa inaynu yeelano mooyaane dadkan la dooranayo inaynu inana kuwii arrimaheena u doodayo si aan u dooranno xaqul intikhab baa la siiyey waa soo wadeen xaqu tarshiix baa markii dambe la siiyey waa soo wadeen inay madax noqon kartaa loo soo ogolaaday waa soo dagaalameen dagaalkoodii الحركة النسائية العالمية waxay gaarsiiyeen xad غير معقولة dunida qaybo badan oo kamida waxaan oran karnaa waliba qaybaha reer galbeeda wixii way la wareegeen ragii waa ka xog badiyeen wax badan bay la wareegeen mutabaradadoodii ugu dambeeyay ama aragtiyadooda ugu dambeeyay hadda waxay marayaan discrimination iskii bay dhahdaan midab kala soocii dadka iyo xuquuqda dumarka ee la dacfinayo waxa ka hadhay kaliya bay dhahdaan waa guurku bay yidhaahdeen waa sijin ama waa sex discrimination waa rape waa kufsi la joogteeyay bay yidhaahdeen gabadhan guriga lagu haysanaya xor ha u noqoto meeshay doontaa ka baxdo hadda waxay raadinayaan xaqa in nikaax la buriyo oo guurku inuu yahay weli man adis bay yidhaahdaan man wanted adis bay ku sheegaan weli inuu yahay dheeraadku raggu doondoonayay marka guurkana ha laga takhaluso de waa kuwan hadda wada qaanuuni lusraba in la bedelo maxaa family loo oran karaa reer maxaa loo oran karaa laba nin isfuula waa reer labada dumar isfuula waa reer ninka iyo gabadha soo galaa waa reer waxana sheegaysaa kala laga baxay leeyahay wax nikaaxan la yiraahdo iyo guurkan iyo family-gan oo dhamay waa wax lagu lumayo idan iyaga meeshaas kala dhacdo su'aasha isweydiinta waxa weeyaan inaga maxaa la inoogu yeedhay hadaba inta aanan ka waramin waxa la inoogu yeedhayo waxaan jeclahay mawduuca horta aad baan u nacbay inaan ka hadlo maaha mawduuca jeclay waayo waa usluub min asaaliibihim saan loo wada ayaa wuxuu yahay baa asal
afkaartoodii nooc ka midun bayn taxliilinayna laakiin intaanan o dhan waxay noogu yeedhaysaa waa qaldan yihiin ama waa saxan yihiin ama waa caynkan wixii way midho dhaleene maxay dhaleen su-aashaasa isweydiin leh xaraka nisaa'iya alcaalamiya lawadiyo midhay dhashay midhahoodii muxuu yihi waxaan jeclaya inaan waxoogaa midhaha horta dhashay ka warramo masalan waxaa dhinacayga hadda yaalla buug uu qoray nin la yidhaahdo Patrick J. Buchanan. Patrick J. Buchanan ninkan la yidhaahdaa waa nin 3 madaxweyne oo Maraykana buu ahaa senior advisor la taliyahooda sare ayuu ahaan jiray 3 jeerna madaxweynenimada Maraykanka ayuu soo sharaxay 2 goor wuxuu iska soo sharaxay isagoo Republican nominateska ah marna reform party-ga mid ay yiraahdaan buu 2000 iska soo sharaxay xaga kale waa suxufi caan ah oo la yaqaano ABC NBC News NBC-ga TV-ga la yiraahdo iyo CNN-ka TV-ga la yiraahdo programada ugu caansan waa ninkii lahaan jiray mesela programkan Crossfire-ka la yiraahdo kale CNN-ku ilaa hadda soo daayay waa ninkii bilaabay ninkani buuggan uu qoray waa buug ka mid ah the best seller books buugta ugu fiican ee la iibsado sayagu sheegay buuggan ninka kan ma rabo inaan xayaysiiyo way ninkan waa niman aad u kala fognahay waa maxaa la yiraahdaa midigta xaq jirta waa kristanka fog deena tarafka kala malaanay waa niman kala dheernay laakiin dibbayna wada haysato ka waramaya dibtayna wada haysata buugiisa wuxuu u bixiyay The Death of the West The Death of the West geerida reer galbeedka uu bixiyay geerida reer galbeedka ninkani waa nin reer galbeed ah haddana wuxuu ka waramayaa reer galbeedku inay geeriyoonayaan مثلا عناوينta buugga kani uu ka waramayo waa عناوين aad u qariiba مثلا ciwaanka koowaad waxa la yiraahdaa endangered species xayawaanada khatarta ku jira dabar go'aya waa ninka cad buu ka waramaya ninka cad weeyaan xayawaankan dabarka go'aya uu sheegaya ciwaankiisa labaad waxa la yiraahdaa مثلا where have all the children gone war carruurtiyo dhima xagee qabatay dunidu way carruur laaday buu leeyahay oo dhalmadii baa la waayay ninkani wuxuu ka waramayaa markaa waa nin cidiyaha ku dirarsan oo ka waramaya mujtamaciisii Maraykan ahaa inuu baaba'ayo iyo ninkii cadaaba inuu ka daba tago مثلا chapter-ka koowaad baan jeclay markaa inaan waxoogaa ka soo qaato waxaan u soo qaadanayaa feminism-kan la waday iyo dumarnimadan la waday waxaan loo doodayay waxaan rabaa midhahay dhashay in la arko waliba midhahay dhasho dhan ma ka waramayo hal jaanib oo qura ayaan rabaa inaan tilmaamno waxa uu tilmaamaya uu leeyahay ciwaankaasi markuu qoro European species are vanishing species wa London Times ciwaan ay qortay reer galbeedku waa xayawaanaat munqarida xayawaanaadka dabar go'aya wuxuu isagoo buuggan ka waramaya markaasi soo qaatay nin la yiraahdo Peter F. Drucker oo nin caan ah oo buug la yaqaan macruufa management challenges for the 21st century buug la yiraahdo qoray wuxuu ka soo qaatay word oo ninkaasi leeyahay the most important single news certainty if only because there is no precedent for it in all history is the collapsing birth rate in the developed world xaqiiqada qora buu leeyahay haddii aanay ahaynba taariikhdaba xaqiiqadii kaliya markan ina soo martay xaqiiqada kaliya yani aan ku muran lahayn waxa weeyaan buu yiri dhashan sii maranaysa ee dunida horu martay waxaynu naqaanaa ummadi markastoo dhasheedu uu soo badanayso in xadaaradeedii iyo dadnimadeedii iyo mujtamacan uu hor u sii marayo markastoo buu yiri ummad dhasheedu ay sii yaraato sii gabagabowdana waxaynu garan karnaa buu leeyahay inay xadaarad iyo ummad sii baaba'aysa tahay waxaan oran karaa buu yiri waxaan la mid yahay Cheshire Cat-ka waa bisad ay dunida maanta leeyihiin waa bisadka sii dabar go'aya hal la ilaaliyo ayuu la mid yahay buu leeyahay ninkii cadaama reer galbeedka ah wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo xayawaanka leedin weeraha kani waa weera qariiba maxaa looga jeedaa cilmigan ijtimaaciga sociology iyo waxaan marka laga waramayo adilada ugu kuuskuusan la isticmaalo ugu adag waa xisaayaadka
يعني waxaan ihsaayaadka la tira koobada la yiraahdo waa dilada ugu adag ee yiraahdaan dhanna laga ma dhaafo مثلا ninkan wuxuu leeyahay 1960kii marka la isku daro buu ninka cad ee ku noolaa Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo Canada marka la isku wada daro ninka cad deganaa wuxuu ahaa buu leeyahay waa 60kii 750 milyan dunida dadka ku nool oo dhamina waxay ahayn buu leeyahay 3 bilyan taa macnaheedu waxa weeyaan waqtiga ninka cadi wuxuu dhigmaya quarter ama 4 meelood oo meel ahaan ayuu ninka cadi waxa dadka dunida ku nool baa ahaa buu leeyahay 40 sanadood kadib haddaan tirada eegna buu leeyahay waa 2000 taariikhdu markay mareysay dadkii dunida ku noolaa wuu laban laabma wuxuu noqday maxay 6 bilyan halku 3 bilyan ka ahaa 6 milyan ama 6 bilyan ayuu noqday ninka cadi isagu uu istaagay buu leeyahay halkii uu 60 joogay muu soo dhaafin buu leeyahay sadraadeed wuxuu leeyahay 47 ka wadan ee Yurub ay ka kooban tahay hal wadan oo kaliya ayaa jira oo laga bilaabo 2000 ilaa waqti indefinite aan noolaan karo oo sii jiri kara inta kale way dabar ku haysaa buu leeyahay bal way dhawfirs 47 ka wadan ee Yurub ka kooban tahay buu leeyahay hal wadan baa jira buu leeyahay maclasif buu leeyahay kaasina waa muslim buu ka noqday Albania Albania qura ayaa dhali karta si uu si noolaato waxaan oran karaa buu yiri Europe has begun to die Europe waxay bilowday buu leeyahay inay dhimato 2050 markay taariikhda la gaadhay buu leeyahay yani hadda 2003 baynu maraynaa 47 sano kale hadii lagu sii daro qarnigan aynu ku jirno bartamihiisa hadii la gaadho population-ka dunida 3 bilyan oo kala ku biiriya buu leeyahay waxa noqon karaa hadii growth rate-ku saanu maanta yahay uu socdo ilaa 9 bilyan 9 bilyan buu leeyahay boqolkiiba 50 ka mid waxay ka iman doonaan Asia, Africa iyo Latin America ninkii cadaaya Europe buu isaga leeyahay 100 milyan buu hoos u dhacaya dama isaga waxba ku biiraya isaga wax dama dhali maayo dhasho waa dhamaata waxa ninkan cad ku socda buu leeyahay halka dunida 3 bilyan oo dad ku soo biiri doonaan isaga waxa ka sii go'i doona uu sii yaraan doona wuxuu noqonayaa maxay 100 milyan oo qof oo ninka cadaba sii tirtirmaya buu yiri taa macnaheedu waxa weeyaan buu yiri 1960kii ninka cad afartii qof ee dunida kor marayaba mid baa cadaan ahaa 2000 marka hadda la jooga buu leeyahay 6 qof ee dunida dul marayaba mid baa cadaan ah 2050 marka la gaadhana 10kii qofba hal mid ah ayaa cadaana buu leeyahay tirakoobkan buu leeyahay maaha tirakoob anigu aan iska sameeyay waxaan ka soo qaatay buu leeyahay United Nations World Population Prospects ka ay soo saarto waliba revision-kii dambe 2000 kii la revise gareeyay iyo revision-ka wixii lagu sii daray 28 February 2001 ayaa ka soo qaatay buu leeyahay dib ugu noqday mar labaad wuxuu leeyahay Iceland laga soo bilaabo buu yiri ilaa Russia laga tago 2000 markay taariikhdu ahayd ninka cad deganaa waa 728 milyan hadii la eega buu leeyahay sida ay imika wax u dhalaan haday wax u dhalaan nolosha ay sida uu socoto 2050ka 600 milyan bay dadkani noqon doonaan yani 128 in ku dhow ayaa la waayay study kale wuxuu sheegayaa buu leeyahay noqonayaan 560 oo hatta 600 inay hoos marayaan taariikhda Yurub marka dib loo baadho buu leeyahay taariikhda Yurub oo dhan hadii dib loo baadho mar ay Yurub yaraatay oo sidan oo kale ay yaraatay buu leeyahay waa waqtiga ay dhaci jiray wixii la oran jiray black waxa weeyaan 1347 ilaa 250 ayaa daacuna ka dhaceen Yurub waxa la dhahaa dadkii Yurub deganaan jiray ba 1/3 baa la waayay $3 baa dhintay nasiib darro buu leeyahay kani kaana uu ka falxun yahay Yurub $3 ku dhintay waaye buu yiri kaasi inta badan wuxuu leeyahay kuwa waaweyn iyo kuwa yar yar iyo mid walba xanuunku deema kala aqoon buu leeyahay qof yar iyo qof weyn qof walba uu dilay laakiin iminka xaqan laga wadaa buu yiri waa yar yar kun baan la dhalayno xaqa yar yar baa ka dhamanaysa marka hatta kaasa dhaamay buu leeyahay sida ay sheegaya
وجاكولين كاسو وأنهم بروفيسورة وإيكونوميك بروفيسورة بوغو قرولة لها The War Against Population دقالك اللي قولي جرى بني آدمك وحلي اللباتان ودن ee dunida ugu dhashay yar leh 20ka wadan ee dunida ugu dhashay yar leh 18 baa Yurub buu leeyahay labada kalena kama sii foga waa Japan iyo wax la nooca reer kasta oo European ama gabadh kasta oo Europe buu leeyahay fertilitygeeda average fertilitygeeda hadaynu eegno wax dhalkeedu waa 1.4 macnihiisu waxa weeyaan laba qof oo kasta oo isqaba waxay hayd inay dhalaan maxay hadii la rabo inaan dadku korin ee uu intiisu iska joogay labadoodii un labadii bedeli lahaa dhalaande iyagu markay dawabaan dhintaan ama gababaan shaqayn kari waayaan labadii booskooda buuxin lahaa inay dhalaan laakiin saani ma aha waa 1.4 way ka yartay hadii la rabo buu leeyahay in mujtamac Ben Wattenberg odagii Jarmalka la oran jiray hadii la rabo buu leeyahay mujtamac inuu koritaankiisu sax noqdo uu jiro wayna average fertility rate kaasi uu noqdo 2.1 minimum ugu yaraan waynu inta noqdo yaani labadii boqol qof waynay dhalaan 210 qof hadii la rabo mujtamacaasi inuu si caadi ah u jiro waxaan ka warramayaa buu yiri وزيرو population growth ما هبو يروح عن كورما يعني population كان كورين ماها وزيرو population بان كورما يا بولي سكلاتين وشجنا وحي شيء جيان حويان حولش الله سمايه يا كفنت الله طلع يوروب كفنت عبدا يعني صندوق غير ميت كل جوريده يا حول غير المو مركز شيء لجوريده labada marka la sidin dhigay bay leeyeen waxa badan ka fanta badan macnaheedu marka waa maxay dadku si yaraanaya weeyaan si maranaya hadii buu leeyahay Yurub sidan ay maanta wax u dhasho ahaato waqti aan si fogeyn oo qarnigan dabayaaqadiisa Yurub tiradeedu waxay noqon doontaa buu leeyahay 207 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu yiri intay maanta tahay waxay hoos mari doontaa 30%. yani tirada ay maanta tahay waxay ka sii yaraan doontaa 30%. halka markuu marayay buu su'aal isweydiiyay ilaa in European-kii oo dhan waa kan mariyay ee uu leeyahay wax waliba way sii yaraanayaan oo hoos bay u sii socdaan su'aal buu isweydiiyay uu leeyahay why is this happening war waxani maxay inoogu dhacayaan dadkani u yaraanaya dabeetana cilooyin buu keenaya koow wuxuu leeyahay fikradan socialistka ee mujtamacu qaatay ee ah buu leeyahay allada wal marax inay noloshuba tahay in la tunto la farfarxa oo generationadan dambe laga dhaadhiciyay buu yiri noloshuba inay nooca u eg tahay iyo isagu ra'yiyada uu radinayo waxa kamid ahaa uu leeyahay state pension kan dawladdu lacagta ay bixiso buu leeyahay carruurtan iyo waxaan oo dhan in lacag la siinayo waayeelku markuu gaboobo in lacag la siinayo saadaradeed waayeelku aan u baahanayn carruurtii hadhow markuu weynaado udayaga beshanka ka qaadan lahaa uu soo waday haweenkan buu leeyahay dabada loo soo saaray lacagta badan helay tumashada rag iyo dumarba la iska tulmaanayo aan mas'uuliyadda wadan buu leeyahay aan waxba ka ratibmaynin raggan iyo dumarkan dhamaantood xorriyadda la siiyay وانا reer galbeed ninka sidaan u hadlaya uu soo wada wuxuu ku tilmaamaya uu leeyahay arinku hadduu sidan ku sii socdo buu leeyahay family waxa family-ga la yiraahdaa reeraha waxa la yiraahdaa way qarsoomi doonaan ama way baabi'i doonaan and one day are gone Europe goes with them buu yiri family-yadu markay tirtirmaan ee family ba la waayana Europe-na la waa buu leeyahay family haduu baaba Yurubna baabaaday buu yidhi raacdo xaga kale ninkan colaad buu haystay wuxuu leeyahay dunida saddexaad markaan eegna buu yidhi 15 bilood ee kastaba 100 milyan oo qof oo cusub ay dhalaan buu yidhi sanadii 3 bilood 15 bilood ee kastaba dunida saddexaad waxa ku soo kora buu leeyahay 100 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahay
2050 uu sheegayay marka la gaadho 40 wadan oo Mexico leeg baa dunida ku soo kordhaya 40 wadan oo Mexico leeg ayaa dunida ku soo kordhaya Europe halkay dunida saddexaad ka soo kordhinaysa buu leeyahay 40 wadan oo wadan waliba Mexico leeg yaani 100 milyan yahay halkay dunida kale soo kordhinayso Europe dhankeedana waxa la waayi doonaa buu leeyahay dad u dhigma dadka degan Belgium iyo Holland iyo Denmark iyo Sweden iyo Norway iyo Germany oo la isku daro konta ka sanadood bay intaas ku dhamaanaysaa buu leeyahay yani Europe tiradeedii marka la eego dadka meesha ka bixi doona intaas ay noqon doonaan wuxuu kale isweydiiyay hadana su'aal ah waxan ma la joojin karaa su'aashiisii hore uu ka jawaabo wuxuu yiri waxan maxay u dhacayaan uu isku dayay inuu ka jawaabo su'aal ah buu isweydiiyay oo ah war waxan ma laynaga joojin karaa wuxuu yiri inta la laayahay ilaahay oo arinta soo farageliya absent divine intervention inta la laayahay buu leeyahay يعني حاجة ربو لغا سو فرغليه نولش اما لا لا يحي بو ليه هوينيدا reer galbeed waan wali aqbalayn oo ku qancaynin inay abuurto family size u dhigma kii hooyadeed ama si ayeedeed sameeynayay future-ka dunida saddexaad baa iskala bulay laba goor oo quraanu badbaadaynaa buu ninkan ilaahay daadu khaariqa keena buu leeyahay dadka kala badaan la mariyo kale oo iska soo hadhno suurtagal marka kale aanu badbaadaynaa waxay tahay buu leeyahay Western women to begin having the same size families as their grandmothers in la helo buu leeyahay haweeneyda reer galbeed oo lagu qanciyo inay dhashay intay ayeedeed dhali jirtay hooyadeed ma ayeedeed buu qabatay ayeedeed intay dhali jirtay inay dhashay buu leeyahay intan maanta Europe degan hadii labada midba la waayo buu leeyahay taa macnaheedu waxay noqon doontaa in future-ka dunida oo dhammi uu gali doono gacanta dunida saddexaad uu ku tilmaamaya markaynu isku soo celcelino xilay 2050ka Afrika waxay noqon doontaa 1.5 billion Morocco ila Persia Iran iyo Morocco inta ka dhaxlana Arabta iyo Turkiga iyo Islamic Sea bay noqon doontaa buulay nus milyan dad uu degan yahay 500 milyan oo dad ay degan nus bilyan yani South Asia buulay 700 milyan oo qof baa deganaan doona Iran iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo Bangladesh India waxay noqon doontaa buulay 1.5 billion Indonesia oo dal muslimiin 300 milyan buu noqon doona intu soo waday buu wuxuu Russia iyadu shrinkage way ururi doontaa buu yidho halka imka 147 ama 150 milyan imka laga sheego 114 milyan bay yana dib u noqon doontaa buu leeyahay Europe buu yiri si ay markaa u jirto oo wax soo saarkay maanta leedahay si ay u soo saari karto waxay u baahan tahay buu leeyahay inay qaadato 169 milyan oo qaxoontiya 169 milyan oo qaxoontiya ama waxa uu tilmaamayaa waxa soo dhan u wadwada 169 kaasi qaxoontiga ay ka keeni doonto bulaya Afrika iyo Middle East kaasi waa hal way oo nolosha ay u sii jiri karta bulay another way bulay طريق kale ma la helayo nimanka qaxoontiga in ugu soo yaacayo lagu celiyo oo Europe ay u sii jirto wixii طريقه labaadna waxa weeyaan in Europe taxiska ama cashuura ay qaado kor qaado pensionka la bixiyo hoos loo dhigo caafimaadka bilaashka la joojiyo ama hoos loo dhigo dabeetana Europe ay noqoto buu leeyahay dal kamid ah dunida saddexaad yani laba shay un bay Europe ku jiri kartaa inay waxan barwaaqeymka sheeganaysa intay ka takhalusto cashuurtana kor u qaado waxyaabihii benefitska dadka la siin jirayna la wada joojiyo oo ay markaa noqoto wadan yar oo dunida saddexaad kamid ah bulay continent kamid ah dunida saddexaad ama se inay qaadato 169 milyan oo ay Afrika iyo Middle East ka qaadato bulay hadii kale gabadha reer Yurub waa in lagu qanciyaa sidii ayeedeed u dhali jirtay inay u dhasho French demographer Alfred Sauvin in la yiraahdo Francis ayaa wuxuu yiri Europe sidan ay iminka tahay haday u soo socoto buu yiri
waxay noqon doontaa buu yidhi a continent of old people in old houses with old ideas buu yidhi yurubtan la sheegaya waxay noqon doontaa buu yidhi qaarad dad gabgaboobay wada degan yihin oo guryo gabgaboobay ku wada jira oo caqli gaboobayna xambaarsan buu yidhi sidan aynu imika u fakarayna haddaynu nolosha u wadna buu yidhi yurub waxay noqon doontaa wadan ama qaarad dad gabgaboobay degan yihin oo guryo gabgaboobay ku jira oo caqli gaboobayna xambaarsan su-aal kaluu soo celiyey ninkii wuxuu leeyahy wargeeridan yurub ma la joojin karaa ninkani tolkiibuu u calaacalaya geeridan yurub ama baaba-an yurub is the death of the west inevitable wuxuu isugu jawaabay haddana inta aanay suurtagal ahayn haddaynu inoo suurtowda buu yidhi caqliga gabadha reer yurubka ah in aynu ka dhaadhicinno oo aanay isdhiibine ay u fahamto wanaaggu inuu yahay yani wanaaggu inuu yahay inay u fahamto buu leeyahy ilmo la dhalo oo la kobciyo haddaynu taa awoodi karna buu leeyahy waa joojin karnaa haddii kale buu leeyahy waxba kama joojin karayno yani ninkani wuxuu leeyahay haddaynu gabadhaynu nidhi hala xoreeyo dabadda ha loo saaro ha shaqo tagto suuqa ha qabato ninkaa la beratanto ha iska rawdo lacag ha hesho guurka ha diido wax walba haddaynu taa dib ugu qancin karna buu yidhi inay gurigeeda joogto oo carruur dhasho oo kobciso oo dabeetana u soo saarta buu yidhi and sending them out into the world to continue the family and nation markaas un baynu joojin karnaa buu leeyahy the death of the west ninka reer galbeed ama reer galbeedka geeridiisa markaas un baa joojin karnaa u sii waday ninkani warkiisiiyo wuxuu leeyahay war haddaad taa diidaan buu yidhi reer galbeedow oo rag iyo dumarkiini fikraddaa laydinku qancin kari waayo markaa waxaa ogolaataan buu yidhi inaynu qorro jabtarkii ugu dambeeyey ee taariikhdeenii iyo ilbaxnimadeenna ka warramayay inagu on our will buu leeyahy yani doonisteennana aynu ku saxeexno inaynu geeriyoonno yani aqbala buu leeyay inaynu idhaahno bes haddaba taa waynu diidnay soo maaha last chapter of our history aan qorra buu leeyahy oo ah yurub waxay aqbashay inay dhimato dabeetana aan wada saxeexana buu leeyahy iyana muran kale ma jirayo either of the two buu leeyahy inaad last chapterkaa saxeexdaan iyo inaad gabadhan saan ku qancisaan su-aashaan idi weydiinaya markaa waxay tahay haddii tii la xoreeyey cirka la qabadsiiyey ee lacagta heshay ee jaamiciyadda noqotay ee madaxweynaha noqotay ee ra-iisul wasaaraha noqotay ee caynka noqotay natiijaday dhashay ay kan tahay oo kii xoreeyey uu ooyayo innaga maxaa laynaga rabaa soo nala dhintuun ma hadde ma wax kala jiraa yani isagii wuxuu leeya waa baaba-ayna waa marhanayna waxaanu ku qaylinayaa uu leeyahay ama last chapterkii historygeennaba aan maanta saxeexno amase aan gabadheenna qancinna inay guriga joogto oo wax dhasho labada aan kala dooranna buu isagu leeyahy inana hay-ad baa laynoo soo diray iyo urura inoo yimi waxayna leeyihiin soo saara haweenka hala ilbixiyo ha socdaane waxa uu isweydiinayaa su-aal kaloo ah war carruurtii xaggay qabatay buu isweydiinayaa yani maxaa diiday in carruur la dhalo sababta keentay carruurta in la waayo maxay tahy deetana wuxuu ka warramayaa taariikhdoodii dhaqaalaha isbedelay buu leeyay berigii hore buu yidhi agriculture buu dhaqaalu ahaa beeralaydu buu leeyahy waa goobtii shaqada iyo gurigiibaa isku meel ah odag iyo islaantu way iska wada shaqaysan jireen dee laakiin labaduba gurigooday joogeen waanay dhalayeen industrial revolutionkii markuu yimi buu yidhi waxay noqotay shaqadii inuu ninkii meel kale ugu baxo dabeetana markay noloshii ku fillaan weydo gabadhiina ay ka daba baxdo labadiiba ay dabadda usoo shaqo tagaan bost industrialkuna wuxuu keenay buu leeyayba in labaduba ay kala maarmaan oo midba lacag gaara intuu iska helo la iska kala tago intuu waday ninka kane ayuu wuxuu leeyahay duruufta nololeedee dambe gabadha waxay ku qasabtay buu leeyahay inay kala doorato kaariyarkeeda yani shaqadeedii iyo farxaddii hooyanimadu lahayd oo mar ah hadda ma aha dhowr inay dhasho mar qura inay mid dhasho labadaasaabay doorasho ugu jirtaa buu yidhi inay wax kale samayso daayay
يعني gabadhu buu leeyahay si ay ninka ula baratami karto waxa looga baahan yahay ilaan waa meeshii concurrence baa la galay loolan waxa looga baahan yahay horta wuxuu dhigtay inay dhigato jaacadu ka baxay inay ka baxdo taasi waxay kalifaysaa buu leeyahay inay dhowr iyo 20 jir horta marka hore gaadho inta ay jaamacadkan iyo waxa sii wado shaqo fiican oo joogta say u heshaana waxay kalifaysaa 10 sano dambana inay baabkaasi ku jirto markay dhowr iyo 30 jir ama 40 ka sii cagacageynayso ayay haday wax xasuusato guur xasuusan kartaa buu leeyahay markaana haday ka maarmi weydo si ay maruun hooyo u noqoto faraxda xabad ha dhashay buu leeyahay noloshii waxay ku kaliftay buu leeyahay qaab dhaqaaleedkii noocan ka noqdo 1950 buu yiri haweenka reer galbeed buu leeyahay boqolkiiba 8 haweenka haysta caruur 6 jir ka yari gurigay joogi jireen caruur 6 jir ka yar haweenka haysta boqolkiiba 8 gurigay joogi jireen buu yiri maanta buu leeyahay boqolkiiba 4 haweenka haysta caruur 6 jir ka yari goobta shaqada jooga buu leeyahay yani awal boqolkiiba 8 baa haweenka caruur 6 jir ka yar haysta guriga fadhiyeen haddana buu leeyahay boqolkiiba 4 ayaa haweenka haysta maxay caruur 6 jir ka yari ay ku qasban yihiin inay joogaan maxay labor force inay kamid ahaadaan ama qaybta shaqada inay joogaan oo sii wada wuxuu yiri gabadh baa uu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay Eleanor Millis waraysi ay qaaday waxay leedahay hablaha aniga ila midi bay leedahay ee caafimaad qaba ee qalbigoodu fayowye ee tabaqada dhexe mujtamaca ku jira ee 20 jirkoodii ku jira yani dhowr iyo 20 jira wax ma dhalaan gabadhan waxay leedahay hablaha aniga ila mida ee caafimaad qaba ee dhowr iyo 20 jirka ah ee dhaqaalaha isku filani wax ma dhalaan markaas ay isweydiinaysaa why not maxay wax u dhali waaye waxay tiri markaa sababtan wax u dhali weynay waxa weeyaan my generation is to win preoccupation isa waxay tiri da'dayda labada mataanaha loo baahan yahay in la ilaaliyo da'dayda nasiib darre waxa weeyaan bay leedahay sida loo ekaanayo iyo lacagta ku soo galaysa mataanahan u baahnay inaan helaa waa labadan carruurta ma habay leedahay makeup iyo inaan ka dhaldhalaaliyo iyo inaan lacag helo wuxuu leeyahay sababaha keenay weli warkii ninkan baan idin wadaa sababaha keenay waxaa ka mid ah buu yiri markii la arkay dhibtu inay sii badanayso ayaa Mareykanka wax la soo bandhigay buu yiri wax la yiraahdo family wage waa ragga mushaharkooda hal kordhiyo oo lacag fiican ha helaan dabeetana ha awoodi karo ninku in carruurtiisa iyo haweentiisaba ay gurigiisa joogi karaan oo isagu wada biilin karo maanta ninka Yurub jooga ma biilin karo carruurta iyo islaanta ma wada biilin karo hadduu doonayo si farxad leh u noolaado say sheegaan haddii kale waa inay labadooduba wada shaqo tagaan si taa looga maarmo bay yiraahdeen family wage la sameeyo laakiin buu yiri shuuciintii baana soo gashay Marcus iyo Frederick Angeles iyo Baraya Baskoodi dabeetana waa kii Frederick Angeles buu yiri bookisi The Origin of the Family ku qoray buu yiri conditionka ugu horeeyaba shartiga ugu horeeyo xornimada dumarku waa inuu ka bilaabmaa buu yiri inay guriga ka baxdo oo washada qabato ayuu ka bilaabay buu yiri wixii ugu horeeyay ee xornimada dumarka ku saabsisnaa family wage waxa la qaaday buu leeyahay Carlson in la yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay 2000 baa waxa la qaaday opinion poll waa maxaa la yiraahdaa ra'yi العامka su'aalaha dadka la weydiiyo dadka Mareykan baa waxa la weydiiyay buu leeyahay oo rag iyo dumar bale ma xaq mutaabuhu in la siiyo dhaqaale ku filan si haweentiisa iyo carruurtiisu ay guriga u joogaan oo shaqada ay uga maarmaan dhammaantood dadkii boqolkiiba 85 iyo in ka badan waxay isku waafaqeen buu yiri inay fiican tahay in ragga mushaharka loo kordhiyo si dumarku ay guriga u fadhiyaan oo carruurta u hayaan lacagta dumarku ay shaqeeyaanna mar walba supplementary bay hayde waxba may qaban jirin bay leeyihiin wax tar badan may lahayn marka inay guriga fadhido boqolkiiba 85 baa dadka isku raacay buu yiri rag iyo dumarba laakiin buu yiri feminist group ururadii haweenku iyagu waxayna yiraahdeen buu yiri sex discrimination baa jira gender discrimination rag iyo dumarka kala socdeen halkii la rabay buu yiri in la yiraahdo mushaharka ragga loo kordhiyo si carruurta iyo dumarku ay u nastaan ayay iyaguna waxay yiraahdeen buu yiri
xuquuqdii dumarka meel kaga dhacaysa waxa loo baahan yahay buu yidhi EEOC-ga waxay ku tilmaamayeen. EEOC-ga waxay yidhaahdaan Equal Employment Opportunity Commission bay yidhahdaan EEOC. maya bay yidhaahdeen waxaan aad wadaan weli waxa weeyaan bay dumarkii yidhaahdeen men wanted arski weeyaan. raggii weli waxa loo kordhiya soo wadaan bay yidhaahdeen maya dumarka shaqada ragga la mid ah la siiyo iyana ha baxdo. dabeetana buu leeyahay aktigii ama xeerkii rightska ay ku sheegayeen 1964kii maraykanku ugu ogolaanayay dadka madmadoowe xaq la mida dadka cadcad inay yeeshaan. haweenkiina waxay soo dhex raaciyeen buu yidhi in rag iyo dumarka xaqa shaqada laga simo ay xagga u socoto. halkii la rabay buu leeyahay in la yidhaahdo war ragga mushaharka ha loo kordhiyo si carruurta iyo dumarka loo wadi karo. iminka buu yidhi nolosha waxay ku qasbantahay labada dhalinyaree xataa guursataa buu yidhi way ku qasban yihiin inay suuqa usoo wada baxaan. labada dhalinyaree guursataa way ku qasban yihiin buu leeyahay labaduba inay suuqa u baxaan. ixsaa'iyaadkooda waxaa ka mid ah 1970kii buu yidhi dumarka da-doodu 20 jir ilaa 24 jir u dhaxeeya ee aan guursani 36 quray ahaan jireen. iyaga 36 yani wax yar bay gaalada agtooda la tahay. boqolkiiba 36 dumar ah da-da u dhaxaysa 20 jir ilaa 24 jir ayaan 1970kii guur haysan buu yidhi. 1995kiina buu yidhi dumarka lagu qoray buu yidhi never married haweenka aan weligood guursani boqolkiiba 8 bay marayeen buu leeyahay. boqolkiiba 8 ayaa waxay ku qorayeen maxay never married. marka la eego buu yidhi haweenka da-doodu tay 25 jir ilaa 29 jir never married iska waxaa ku qoraa buu yidhi 10 bay kasoo kordheen ilaa boqolkiiba 35. waxay noqotay buu yidhi nolosha reer galbeed haddaynay noqoto ninka wax haystoo qurunbaa intuu guursado carruur dhali karaa oy guriga joogi karaan. inta kale waxay ku qasbayeen inay dabadu baxaan. feminist groupki ayaa ah buu leeyahay waxyaabaha nabaabiyey. ninkan warkiisa waxaan usoo qaadanayay inaan hawl badan oo kaloo aan sheegi laha kaga yaraysto oo ah maxaa laynoogu yeedhayaa soo maaha inaynu qoladaa ku dayanown. gabadha xorowday, gabadha shaqaysatay, gabadha jaamiciyadda noqotay, gabadha dhakhtarada noqotay, ta brofesorada noqotay, waxa la sheegaya laynoogu yeedhayaa un soo maaha siday gabadha reer yurub noqotay iyo xuquuqda heshay inay hesho. haddii markii xuquuqdaa la helo natiijada ka dambaysa ay kan tahay ma meel laysugu yeedhaaba. yani natiijadii waa tan iyagaana qiraya maaha natiijo wadaad sheegay. waxaan ku idhi waa mutatarif christianka midigta foga ayuu ka mid yahay. waa kooxdan iminka meesha xukunta ayuu la koox yahay. haddii caynka uu yahay duqii maraykan uu sidaa u waramayo natiijadii ka soo baxday wixii la sheegaya inuu caynkan yahay iyo ummadaba in inqiraad ku dhacayo miyay tahay meel aynu maanta bilowno inagu mise waxay idin idhahnaa alxamdulilah ilaahayna dhaafiyey baa mahadda iska lahaa ee kooxdaasi noo keeni. waxaan leenahay inay masaladu noocan tahay waxyaabaan tilmaamaya waxaa ka mid ah familigu gurigu waa mu'asasada ugu khatarsan ee mujtamacuba uu leeyahay. bulshada ummaddu mu'asasada ugu khatarta badan leh ee hadday dunto aanay ummadaasi jirin hadday dhisan tahayna ummadaasi jiri kartaa waa guriga, waa familiska, waa reeraha. waa in aabbiyo hooyo iyo carruur ay dhalanay jiraan oo ay tarbiyaynayaan. arrinka maqluubka ahi wuxuu yahay bini aadam wuxuu soo saara maxaa u fiican iskuma daro. yani haddaan noqdo injineer dayaxa wax u dira mid dhulka quusa waxaasoo dhan waa aqoonaha bini aadamku keen. laakiin waxaasoo dhan waa material bay dhahaan. bini aadam wuxuu soo saara bay dhahdeenoo product ah bini aadam baa ugu qaalisano waxa la soo saaro product ah. ummadda hantideeda waxa ugu qaalisani waa dhasheeda. yani horumarka bini aadamku wuxuu ka bilaabmaa bay dhahaan waa 3 shay sida loo falgeliyo. waa dhulka ay dadku leeyihiin khayraadka iyo nimcada iyo waxa alla ku siiyey in laga faa'iideysto. waqtiga ay dadku haystaan inaan la dayicin in laga faa'iideysto iyo dadkiisa in laga faa'iideysto. saddexdaa haddii sidii ugu habboonayd looga faa'iideeyo xadaarada la sheegayo civilization iyo horumarku waa intaa. saddexda waxa ugu khatarsan bay leeyihiin bini aadamka. waayo haddaad isaga losgaraysa bay leeyihiin inta kaleba waad losgaraynaysaa.
hantidii dhulkana waa lumaysaa iyo khayraad iyo nimcad iyo wixii ku jiray waktiguna waa lumaya idan su-aasha aynu isweydiinayna u baahan marka hore in laga jawaaba waxay tahay mujtamaca waxa ugu fiican ee lasoo saara waa maxay waxa la raaca caqliga bini aadamku waa sida wax lagu tusiyo waxay rabaan inay nagu daba rogaan oo ay ku yidhaahdaan gurigu waa xabsi ma madbaxa iyo guriga iyo kajada iyo musqushiya intaasay salaadku ka dhexe maxay ka qabanaysaa haye halka fiicani waa xaggee waa xamaalista iyo dekeda iyo halkaa in la jooga miya yani meesha fiican ee la ammaanaya waa xaggee ma combyuterka in la dul fadhiyaaba goormu combyuter guri ka fiicnaaday say macquul u tahay productionka lasoo saaro maxaa ugu fiican inaad gawaadhi samayso iyo inaad bini aadam tarbiyayso soo saarta iyo ma roon maanta hargeysa inaad 100 gaadhi kusoo dayso iyo 100 wiil oo waxtara ama 100 gabdhood oo waxtara inaad soo dayso iyo ma roon yani waxa roon oo aan muran ku taagnayn insaanka idan meesha ummadu ka jabta waa qofka bini aadamka ma aha materialka bini aadamka sameeya horumarka bini aadamka sameeya haddaad bini aadamka weydo wax walba weyday haddaad say isaga hesho fursadii waad leedahay jaaniskii waad leedahay wax ku heli lahayd in markaa gabadha loo sawiro shaqada ah in ilmo la dhalo oo la koriyo oo caqiido la baro oo bini aadam dhaba laga soo saaro oo aakhiriya adduunba wax anfacaya noqdo shaqadaasi iyo in la isdhinac dhigo warshad in laga xamaala waa caqli foorara aad u foorara laakiin waxa la rabaa in adiga ka lagu qurxiyo lagu yiraahdo gurigoon bay joogtaa madbaxa iyo kitchada iyo inta mid dhex marmaraysa waa sijni waa xabsi halka fiicani waa halkee waa inay geerashka iyo joogto warshada iyo xafiiska madaxtooyada iyo meelaha inay warwareegto ayaa halka fiican iyo jaamacadda oo inanka dhinac fadhido is that the correct position waxaan leenahay aqeedada inuu insaanku yahay waxa ugu fiican la soo saaro guriguna uu yahay meesha ugu wanaagsan soo saarta markii la ogaado مثلا mubashirku waa missionary waa masiixi diin faafinaya waa daaci diin kristana faafinaya ay caalamul islaami markay gumaysanayeen qabsanayeen bay shireen 1913 kii bay lakano ku qabteen shir mubashiriintii gaalada isugu yimi waxa laga waramayaa markaa caalamul islaami sidii loo dumin lahaa ama loo qabsan kari lahaa ama loo baabayn lahaa asaaliibtii la raaci lahaa bay ka wadeen 1 2 3 4 5 6 toddoba markuu marayay buu wuxuu qoray si looga yani mujtamaca loo dumiyo looga guulaysto bay yiraahdeen al-irtiqaa al-ijtimaa'i wan-nafsi bayna an-nisaa' al-muslimaat bay yiraahdeen muhibbadiin al-khatiib tarjamadu al-ghara 'ala al-'aalam al-islaami kitaabku tarjumay ku qoray waxay yiraahdeen waa in la kobciyaa ijtimaac ahaan iyo nafsiyan bayn loo kobciyaa haweenka muslimka ah hadda waa gaal raba inuu ku guumaysto wuxuu ku leeyahay waayo wuxuu og yahay haweeneyda muslimka ee gurigeeda joogta xataa haddaanay waxna qorin waxna akhrinin inay ilmaheeda caqiido fiican ku tarbiyeynayso inay diinta ay rumaysnay u gudbinayso xataa ilmuhu hadduu marka dambe yara fasaado shahwaatu nafsi ay qaado iimaankii lagu canqariyey caqligiisa kama maranayo wuu soo noqon karaa laakiin haddii hooyada afka faranjiga la baro oo combyuterka ay si fiican u barato oo ay khabiiro jaamacad ka soo baxday noqoto asaanay wadanin asaaliibtaynu ka rabnay ilmahay soo saartaa laguma guuraan kalunbuu noqonaya xataa hadday wax dhasho dee way nasiib wanaagsantay horta hadday wax dhasho laakiin hadday dhashana mid aan lagu guurayn buu inta badan noqonaya melihi anigu gabadha muslimadii iyo wax baranin melihi gabadha muslimadii jaamacadii ka bixin melihi laakiin waxa aan tilmaamaya qaabkan laynoo wado ee ah the same curriculum in rag iyo dumarka isku wax qura loo dhigo waayo gabadha la rabaa in la nineeyo waayo laba qof oo kale professional laba shaqo kale noocay qabtaan rag iyo dumarku isku shaqo maaha maadaama ilaahay ugu talagalay laba shaqo kale nooc inay qabtaan biologically iyo physiologically bay ilaahay wuxuu abuuray laba qaab oo kala gedisan walidaalika waa Alexis Carrel wuxuu lahaa unug kasta oo haweeneyda ku jira buu yiri wuxuu sheegayaa haweennimo unug kasta oo nin ku jiraana wuxuu sheegayaa ninnimo mid walba meeshii ilaahay ugu talagalay inuu ka shaqeeyo ayaa la siiyay awoodeediina ma aha rag iyo dumarku wax la isdina ciriyo la dhaaka fiican mid waliba halkiisu ku fiican mid walba hadii halkiisa laga kaxeeyana wuu doqomoobaya gabadhnimo cid kulama baratami karta gabadhnimo ku fiican ninkuna ninnimo ku fiican hadii la isweydaariyana labadaba way doqomoobayaan walidalik
ilmaha lagu koriyo bay yidhaahdaan xadaanada yani waxay tilmaamaan ilmaha intuu laba jir ka yarya bay yidhahdeen hooyo u gaar u baahan yahay uma baahna bay yidhahdeen xataa hooyada in lala wadaago walidaalika waa aragtaan ilmaha yare carruurtaada ka ugu yari dhabta hooyadii markuu ku fadhiya haddii mid kale dhinaca kaga soo fadhiisto wuu xanaaqaya wuu ku hooyaya wuu gujinaya yani ma aqbalaya bay leeyihin xataa in lala wadaago hooyo keliya neersariga bay yidhaahdeen 20ka carruure hooyadu ka dhaxaysa hooyo la-aan weeyaan waxba kama jiraan markaa tiraamaya islaanta iyo odayguba intay shaqo tagaan ha la geeya xadaanada carruurta oo iyadaba dee dumar baa jooga hablaa jooge dabeetana 20 carruura inta la dhiga in 2 islaamood la yidhaahdo sii ilaaliya waa hooyo la-yay waayo hooyo isaga u gaaru rabay muu rabin mid dadba la leeyahay haddii la rabo bayn leenahay in ilmo saxa la soo saaro wuxuu u baahan yahay qaabkii loo soo saari kari lahaa sidaa ogeed waxaan leenahay waxaan laynoo wado waxa weeyaan in mu'asasada ugu khatarsan aynu leenahay in la dumiyo waxaa jirta hooyada muslimadda ee gurigeeda joogta afkaarta reer galbeed inta badan gaadhi mayso haddaan bahalkan cusub imka la isku ibtileeyay guriga la geynin laakiin marka la soo saaro de waa loo warramaya meeshan loo soo saarayo o dhan waxaa loogu soo wadaa un in loo dhiibo afkaar ka gedisan waxay rumaysnayd waxaan leenahay gabadhii la soo saaray maxay faa'iide maanta reer galbeedku ixsaayaadkii qorayaan waxay leeyihin hadday hooyo noqotona bay yidhahdeen double work baa ku dhacay bay yidhahdeen hooyada reer galbeed bay yidhaahdeen dhib bay qabtaa may xoroobine 2 shaqaa ku dhacday bay yidhahdeen subaxiina way shaqo tagtaa hadhow marka lasoo rawaxay iyada iyo ninkuba guriga yimaadaan iyo ciyaalkaba lasoo kaxeeya xadaanada laga soo qaadana shaqadii gurigu may dib u bilowdaa 5.5 hours dheeraadu may shaqaysaa bay yidhahdeen miyaa la xoreeyey markaa subaxiina ninkii way la shaqo tagtay markii lasoo wada rawaxayna iyadun baa shaqadii gurigu sugaysaa carruurta kale seexi kan cunno sii kan halkan gee guriga nadiifso intan samee waxba ninku halkan uba haddana jiifsadaa dhaqaalo soo heshee hawshii un baa lagu kordhiyey wax kaloo u kordhay bay yidhahdeen waa double work bay yidhahdeen xorriyadday sheegayaan waa inay islaamtu 2 goor un shaqayso marna inay xafiiska tagto o ay nin kale secreteer usoo ahaato marka ay ka soo noqotona odaygeedii inay secreteer labaad u noqoto waa 2 goor bay secreteer tahay inana waxaan lahaynaa mar qura secreteer iska noqo oo intaad 2 secreteer noqon lahayd adoo mid qura secreteer u noqdaabaa dhaama idan waxay leeyihiin ixsaayaadka maanta lahaya waxay sheegayaan weli haweenaydu way dulmantay bay yidhaahdeen mar hadday guur u dhaqaado walidaalika bay kuwii dumarka u doodayay waxay leeyihiin guurkana hala baabi'iyo kuwii dumarka u doodayay iyagu waxay leeyihin maxay guurkana dee waa nooc ilaan dulmigii ka mid eh isagana maadaama isaan loo xisaabinayo isaguna meeshaan ka baxo gabadhii markii lasoo saaray bay leeyihin yurub dhibta soo gaadhay waxaa ka mid a kasratu talaaq furitaankii baa batay nin iyo gabadhdee labaduba xoogsi tageen feerkuma iska badiyaan markay guriga isugu yimaadaan midnaka kale uma baahna labaduba waa soo daaleen adigu markaad shaqada ka soo baxdo adoo madaxa iyo caqliguba ku daalan yaad guriga imanaysaa hadday islaamtuna kula midtoo dhan kale ka soo daashay idinkoo xayraansan unbaa guriga isugu imanaysaa idan waxa batay furistii baa badatay waayo waa 2 qof oo labadaba suuqa kusoo dawaqeen awal carruurteediiyo inteeda iskala joogto cidna kama cadhaysa hooyana carruurteeda kamaba cadhooto maanta dhan hadday madaxa ka korayaan iyo hadday bijaa ka korayaan waa iska dhex fadhida laakiin marka labadiinuba intaa suuqa gasheen labadiinuba mar kii managerka kaa cadhaysiiya marka ilaa iyadana xagunba managerka ka cadhaysiinaya ku haystaa unoo lasku haya labadiinuba idinkoo murxiqa oo daalan markaa guriga soo gashaan maa macquul in midkiina soo dhawayn laga helayo idan waxay yidhahdeen taasina waxay kaloo abuurtay kasrat talaaq inuu guryaha dumistooda ay badato guryaha sanad kasta la xisaabay leeyihin 60% baa duma idan waxba ma kordhinayana waxaa la leeyahay waxa kaloo batay junuux al-atfaal maanta yurub bay leeyihin carruurtii faralagaqaad bay noqdeen hadda afrika kama warramayo dib jirkeennan yaryar ee meelaha dib jirkana waa masaakiin waxba ma sameeyaan marka loo eego kuwa xaggoo jooga oo weliba aan ahayn kuwa baahiyo u geynayso kan waxaa laga yaabaa inta yar uu sameeyo in baahiyo u geyso kuwa baahiyo u geysayna maaha laakiin wuxuu rabaa filimka wuxuu ku arkay inuu practically u fuliyo intuu derbigaa isku nabo intuu dadka oo dhan baas mariyo booliskana inuu jiro weliba buu doonayaa oo uu action dhab a muujiyo oo kuu filimka ka arkaya child delinquency bay yidhahdaan junuux al-atfaal qaanuunkuna ma qabto therefore waxay ku kaliftay maanta inay sameeyaan maxay juveniles يعني مراهقين تين لو سمايو حبسيه دن inaad aragto xabsi
dhowr kun oo qof ku jiraan oo dhowr kun oo qof bay yihiin 13 jir iyo 12 jir baladu 12 jir xabsiya dhan ku jira qiyaas junuux al-atfal maxaa keenay bay leeyihiin waxa la waayay bay dhayn tarbiyadii aabanimada iyo hooyanimada qoladii carruurta soo waday ama dumarkii xorriyadda doonayna waxay yiraahdeen ninnimaduba waa wax laga maarmi kara bay yiraahdeen gurigana waa la isku adoonsadaa bay dhaaheen islaamaha warkan wada waxay yiraahdeen maxaad noqon kartaa bay yiraahdeen aleena mur waxay yiraahdaan ama waxa lagu tilmaamo hooyo kaliya waa maxay waxay yiraahdeen raggu hadduu naf leeyahay doonaris ha noqdo waxa sadaqadaysto raggu muxuu sadaqadaysanayaa bankis baa la sameeyay bay yiraahdeen bankiga waxa ku sadaqadaysanaysaa manida dhigaysaa gabadha way iska shaqaysanaysaa meelaheeda beriga dambe istiraado malaha mid inaad dasho waad isaga baahan tahay qolada bankiga manida u tagaysaa registerka ay weydiisanaysaa markaa waxay leedahay waxaan rabaa nin dheer oo indho buluuya leh oo xabadka weyn oo caynkaasiya nin bay sifaysanaysaa markaa waa loo baadhaya diiwaanka waxaa leeyahay waxaanu haynaa 12 indho buluuya leh 20 indha brown leh waa loo baadhaya kadib kay u baahantahay manidiisa lagu mudayaa ilmay dhalaysaa therefore why bay dhahay ninku wax loo baahan yahay ma bay dhahay in guriga u soo hoydaa wax loo baahan yahay ma habay islaamiyiin ay yiraahdeen doonay feminist group ka ee xarakatu nisaaga wada laakiin carruurtii waxay noqotay nooca kan iyadoo maanta culimada tarbiya ama psychiatrists-ka dunida maanta intooda ugu badan ay tilmaamayaan ilmaha bay yiraahdaan misaal bay bixiyaan ilmaha bay yiraahdaan labada waalid mid waayay ka waramayno kan aan lahayn bee looba haynin ilmaha labada waalid mid waayay bay yiraahdeen wuxuu la mid yahay buu leeyahay waaxid minhum nin gacan la'aan koray dii labada gacmood mid lagu jiro dadka noolaan kartaa Soomaha laakiin miya dhamaystay maya waad garan kartaa gacan inay ku maqantay qiimuhu leeyahay labada waalid aad weyda buu leeyahay sabab kasta ku waayo waxay ku dhadhawaanaysaa buu leeyahay gacan la'aan oo kale uu soo baxo waxay yiraahdaan marka junuux al-atfal waxa abuuray carruurtan dambiilayaasha waxa sameeyay waxa la waayay gurigii islaantii guriga joogtay wax rabaynaysa baa la waayay waxa batay bay yiraahdaan الزنا والوباء AIDS baliya baas waxan oo dhan waayo waxay noqdeen inaan la kala yeelanin waxaad ka garan kartaa George Sand oo habarii ugu caansanaya xarakatu nisaaga u doodayay waa islaan qortaa riwaayadaha iyo abwaanada lagu sheegayo waxay yiraahdaan intay nin guursatayba waxay badheer dawla saaxiibi jirtay qaar kale compulsory ninkan inuu aqbalo gabadheer oo qurux badan bay ahayd baa la yidhi riwaayadahan oo qorta lacagna haysata midna way guursataa midna way la saxaysaa kana way inuu aqbalaa compulsory waayo bay leedahay maaha waxa kani beladii waa la faafiyey markaasi wuxuu noqday iska caadi ilaa xad maanta Yurub ay caadi iska noqotay inta xaflad la dhigo in raggu dumarka is dhaafsado oo ninba tiisi midaan inuu yidhaahdo waa soo dhadhaminaya say cunno tahay yani wuxuu insaannimada markay wuxuu ka baxaan wuxuu soo baxay yani nolol kale nooc kale waxaan leenahay waxa kani waxay isu bedeleen idmixlaal in ummad dhan la waayo horaan oo yidhi mawduucan inaan ka hadlo maan jeclayn welina ma filayo inaan aayad quraan iyo xadiis toona akhriyay waxaanay ahayd inaan quraan iyo xadiis ka bilaabo laakiin waxaan ogahay dadka caqligooda waxa lagu guray inuu yahay warkan aan akhrinayo war la mid ah walidaalika baan kanu akhriyay laakiin asliyan waxaan leeyahay mal xal haddaad tidhaahdaan war waxan maxaa u xal ah أهلنا وحى حلكو إسكيه إنه إلهي أقبله هي رسالة رسولك إنه سودي بسلامة الله والسلام عليه إن دمر كالله حقيرين رجنا الله حقيرين دمر كويني حق هذا هلا رجنا إنه حق يسهله عرورتنا إنه حق هذا الشو مجتمعنا إنه حق يسهله يا حقوق الصينية يا كلا دعسر ما إنه ينجو إيجا موقت ما أنت إنه أورورها يوروب كتيران أورورها جاي كم ممنوع تينا دمر كساقلا برينجي أوركو قبتين قلادي رجع هذا أوركو دي سمستي فأنا وحي مؤتمر رجع على سمايي كنتم كونوا نباك سو غيب قلي إن كان قبتين سوغن باشاري سروالو غاوتو لكن دحق الشيء واسكادك تينا إن انتو هو هل قبضوا قرأ بركاك الشيء بيد هذين ينو حل مودين إن انتو هاي إذن محال وضع كون واحد كشري أن قبلها وين ميشو دي لقوا عليها وين لوطا ليها لكن لله وما لها سنين يراد دون صدام بدورية ميشو دي لقوا عليه
ururadii haweenku tirabate maanta galbeedka waxay marayaan carmarku inuu urur yeesho qariiro urur yeesho 200 urur inaad meel qura ku wada aragto kullu dhalika waa isjiidadka meelaha qaarkoodna dee dumarka xoog badan imika xaqiiqo jirta weeyaan Scandinavian oo kale dumarka xoog badan xuquuqda haweentu leedahay ma laha ninku waxaan oran karaa ninka iyo gabadha markay tahay imika haddaad timaadaan shaqo adiga iyo gabadha oo CV-giinu isku mid noqdo yani qualification iska wadateen ama jaamaca ama shaqo ama experience ama waxaan isku mid noqdo oo iyana ay gabadh noqoto adna nin noqoto iyada ka xaq badan iyada la qaadanaya idan iyada ka xaq badan weeyaan waa laba qof oo shaqada qualified wado CV isku mid ah sita isku wax qabtay maadaama ay gabadh tahay xaq kaaga leedahay marka meelaha qaarkood iyaga bursaday imika oo aad u bursaday laakiin waxba kama faa'iidin kuwii bursaday أنا ودك عند جنان شري هبر بقى في الوزارة إنه هان شرتي ما أنت دم واحد تلي عرض تيدي وحبة مدي استلي لا بعرف ولا إذا مد بقى استلي أنت كلا خير كي كان كمان يا شقدي ما هيست بتروس كي تكتب سير رئيس الوزراء واحد قوي تمسني ما يوحين هاي ستفعلها سير رئيس الوزراء واحد بتري عرض تيدي بقى ضيع عنده اسكت جيا وحي وقتين أنا وحوك الله غير ماشى وحي فائدة هنا نشرين ده أنا وحي قبطي أنا قولي جدي بقى قبط inkastoo hadda dabada barato guriga aad fadhiyeen imkana huuba waxa barta haysata fadhii kar weeyday guriga ka soo noqotay United Nations ka huu qaybtan la yiraahdo islaanta haysata waxaan uga jeedaa leeshatan waxaan jeclahay dumarka inaan idhaahdo cidina idin xoreyn mayso wax loo wada oo mar labaad idin dulaysto qofka muslimka ahina ma dhici karto inuu dumar gumaysto hadduu muslim dhabay ay dumarka sheegaysaa waa hooyada waa walaasha waa eedada waa habaryarta waa taad qabtay inta midna ma rabtid inaad gumaysato idan gabadh kastoo joogtaana ninun bay hooyo u tahay ama walaal u tahay ama eedo u tahay ama habaryar u tahay macquul ma aha mujtamaca in la yidhaahdo badhna waa la gumaysanaya badhna wuu noolaanaya laakiin waxay isweydiin leh muxuu yahay mid walba dowrka loogu talagalay gabadha muslimada maxaa laga rabaa inay qabato ninka muslimka maxaa laga rabaa inuu qabto waxaan jeclay in kelmad iska soo koobo aan ku soo koobo qolada maanta ku baaqaysa ee warkan wada iyaga waxaan leeyahay war sahankii idinku horeeyay soo hungoobiye te waxba la akhriyay waxyaga haddii ogtihiin oo dan leediina demalaa inaan iska kindhicinaaba ku haboonay haday og yihiin asay dan leey kooda qaafilka waxaan leenahay sahankii hore soo hungoobay odayadiina ma qaylinaya kooda danta leh waxaan dan kala kalana mujtamacu inuu iska qabto weeyaan wallahu a'lam